aad baad u mahadsantahay walaalkay ayaan la ismaaciil horta aad baan kaaga mahad celinayaa walaalkay aad baan ku jeclahay waxaa tahay nin soo jeeda nin dadkiisa jecel nin mustaqbalka reer jabuuti inay wanaag ay helaan nin jecel baa tahay aad baan ku dhiirigelinayaa waqtigaad siinaysidna waan kaaga mahad celinayaa anigoo xasan daaliya waxaan ka hadlayaa taariikhda aan soo maray iyo taariikhda aan joogo iyo waddanka yurub aan joogo aad baan uga xumahay anigoo jabuuti joogay oo taariikh badan ku lahaa taariikh badanna garanayay inaan yurub joogo dadkii reer jabuutina ay reer jabuuti dadkii jabuuti joogina lagu cakirayo oo baktiga u xalaal yihiin aad baan uga xumahay waxaan kuu sheegayaa ayaan le koleyba su-aalahaadii i weydiisay waa su-aalo aad u da'weyn ilaahayna waxaan ka baryayaa horta ilaahay inuu iga dhawaajiyo wax wanaagsan mana rabo inaan qof aan ku dheerayo ama qof aan ku talax tago laakiin waxaan sheegayaa taariikhda jabuuti sharaf baan hooyadii qaranka waa la wada garanayaa maka rooble waa la wada yaqaanaa maka rooble qofkaan garanayn qof reer jabuutiya maahin soo doodoono dad badan waxaa jira waqtigu maad aragtay amba yaraa ama waqtigu ka xumaa ama taariikhdii garanayn dib uu raacayaa maka rooble waxay ahayd islaan reer jabuutiya oo taariikh badan ku lahayd jabuuti oo guryo badan iyo dabaqyo badan ku lahayd jabuuti waqtigii gobonimada la qaadan taariikhdu ay fogeyd ay ahayd 77 wixii ka horreeyey xisbiyada maaragtay gudaha ka dagaalama iyo kuwa dibadda ka dagaalama iyadaa siin jirtay waqtiga dhaqaalaha maka rooble waa islaan taariikh leh waa islaan la garanayo xuskaygii iyo nolosheedii iyo in la xuso waa la garan waayey ismaaciil cumar geele ninka kaliditaliska ee waddanka jabuuti ka taliya u yaqaanaa islaamkaas maka rooble xasan guuleed hadduu uu tagayo yurub hadduu tagayo aasiya hadduu tagayo america hadduu tagayo maaragtay adduunka meeshuu doono ayadaa kharash ka bixinaysay oo lacagta bixinaysa odhanaysay raggaasi gumaysiga la dagaalamaya anaa siinaya taageeradeeda laakiin nasiib daro waxaa dhacday ayaan la ismaaciil anigoo ka hadlaya xasan daaliya jabuuti toos nasiib daro waxaa dhacday idaacad madaragtay jabuuti la yidhaahdo rtd oo waxba sheegayn ismaaciil iyo ka hadla wuxuu furayo iyo wuxuu galayo ka hadla baa jirta laakiin taariikhda way qabanaysaa dadkaasi dad badan waxaa jira wanaagsan oo ka shaqeeya idaacadda jabuuti oo dad aad u wanaagsan oo garanaya oo qolo waliba leh afar leh ciise leh carab leh cid kasta leh yaa jira laakiin qowlkay ku hadlayaan uu run yahay run maahin wax runa kama hadlaan wixii xaqiiqda kama hadlaan reer jabuutina way garanayaan waqtigay soo mareen iyo waqtiga la joogo taasi markaan ka gudbo waxaa jiray sharaf baan waxay ahayd waxaa ka heesi jiray fanaaniin aad u fara badan oo maanta lasoo koobi kareen oo cabdinuurka madax yahay dad badan oo dhintay ay maanta ku jiraan taariikhda walaalkay anigay la dhashay walaalkay hooyaday aabahay ay dhaleen axmed cabdillaahi daaliye oo loo yaqaano calulbacdi iyo sharaf baan ku jiray kadib sharaf baan marka laga yimiday waxay jirtay maka geelle islaan la odhan jiray oo xaafadda lixaad gelaysay waxay gelaysay xaafadeeduna ay ku toosnayd amba dariiq ay ahayd rida seela ayay geli jirtay walaalkay baa ka madaxa ruwaadii u horreysay xaafadeedii lagu coray aniga kula hadlaya tigidhada goynayay waa nasiib waqtiga aan soo marnay iyo taariikhdaasi waa taariikh fog laakiin dadka reer jabuuti kii hadla ee gabadhii hadsagoo ma garanayaan dad badan waxaa jira taariikhda garanayn oo waa soo galaynaa facebookga amba liveka odhanaya oo iska hadlaya taariikhan jirin ka hadlaya laakiin taariikhda sideeda loo dhigaa nimaan garanayn ama qof aan garanayn taariikhda hadduu qaato wuu duminaya laakiin anigu waxaanan garanayn kama hadlo qof waxaanan garanayna qof baan weydiiya waxaan taariikhdaasi way iga luman tahay ii keena amba igu caawiya waa laygu caawiya waan ka hadlaa markaa laakiin waxaanan garanayn kama hadlo ayaanla waxaan ku odhanaya walaalkeeda taariikhda aan soo marnay iyo waqtigaan joogno waa waqti fiican waa waqti
aad u wanaagsanaa buu ahaa laakiin waqtigan joogno waa 22 yaan joognaa taariikhda 22kaas waxa weeyaan dadka reer Djibouti ula hadda way cakareen weli nolol ma haystaan ilmihii ku dhashay Djibouti waa la diidan yahay inuu ku noolaado dalka inuu mishaar fiican ka qaato dalka Djiboutina waad ogtahay ayaano waad ila ogtiin dadka baraha bulshada igula jira amba waqtiga ila wadaagay Djibouti lama biiriyo mishaar lama biiriyo sanad waagii Faransiiskii ogeyn aan yaryarayn sanad kastaba mishaarka waa la biirinay amba 2,000 lagu daro amba 5,000 lagu daro mishaarka waa la biirinay maanta mishaar ma kordho laakiin maciishadii iyo noloshii waa la kordhiyay laakiin mishaarada lama kordho waa nasiib darro ina Cumar Geele wuxuu ku noqday dalka Djibouti iyo taariikhda Djibouti nin aan la iloobi karin adduunka inta ku nool ayuu ku noqday wuxuu noqday way عدن سؤاله وحيابه بدل ما ضلنا هنا نحسوس سمعت أنا ورمينا كيف يسمونه عبد العبدل ونرجوله حسن شير ويسووا يرهرب سن ويسكب حي أو إنتي وما تكرس ويبقى البرنامج وبس ويا هستي قرمقاتي إيه كان حقله أياله أي هستا قرمقات هستا سوحة عريي من أنا لا دشوا أنا جوحي ولا كي خضير عبد الله الدالية نكاسو أبوان دلك جبت ولا شيء حافظ اللي حد ولا شيء سات شيكتي وحنو قادنا يا وحويان تدكو بالآدم كإلهي أبوري نولي بسبو وحو أركان قفك السبب ريجي سنو أدبو ورحسين waxaan jecelahay garmaqaate heesta lagu leeyahay gabar waxa ku heestay amina ku heestay subaadka heesta ay ku heestana waxay ugu heestay waxay tiri gaarigii ninkii wadi jiray haloo daayay gaariga ninkii wadi jiray haloo daayay gaariga ninkii wadi jiray waa ayo waa la isweydiiyay waa ninka gaariga wadi jiray gaariga ninkii wadi jiray waa shofeer gaariga ninkuu jiray sidii uu wadi jiray u wadaya oo si wanaagsan buu wadaya oo dariiqii iyo maaragtay stoptii iyo wixii nidaamkii uu garanaya qofka gaariga wadada ee shofeer heestaasi anaa kuu sheegay heesta qalado badan bay leedahay gaariga ninkii wadi jiray ha loo daayay ninkii leedahay gaariga ninkii wadi jiray uu garanaya dariiqa siduu u maraya stoptii nidaamkii dikadu ay lahayd iyo wadadu ay lahayd iyuu garanaya laakiin ninkii wadadii iyo nidaamkii gaarigii lahaa garan waayay gaarigii muuda kara waa maya marka nin aan gaarigi wadi karin oo gaariga dariiqa ku ridi karin oo nidaamkii iyo sharcigii aan fulinayn haddii gaari loo dhiibo muuda kara waa maya saabay ku hadashay gabadhaasi fanaanada reer Djibouti isku sheegaysa laakiin khalado badan bay samaysay anigana waxaan u sheegayaa iyadana waan garanay anigana way garanaysaa ayaan low haddii iyadu hungurigeygii ka hadlayso reer Djibouti way cakareen dadkii dhalinyaradii boorka dhalinyaradii dhakhtarka joogtay meel waliba joogtay ayaa mishaar la iyadana waxay leedahay siday doonigeygii iyo waqtigeygii u hesho ee wax yar loo siiyo ayay u heesaysaa ma fahamta waayo nasiib daro سيدا عاد بعد ما كنت حسن ذلي عبد العبدو ما دام أنا كهل إني كنت فنانين كل با فنانكو وحنا ذات أنت موقتها إن بدنا وناكس ويكون جرتا لكن قارلوهم باجرا يدرون أنت عم كميت هاي فنانكنا حسيات أدوبو شعبهان أدوبو سكنتي وقع صونيا لكن هديم حاجة هيدني أدوبو أفتح دقيقتي ونقطتي يعني qof aan moogtahay soo dadkiisa eegaleen wuxuu ka cabsoonayaa marka kaliya meesha jooga waxaan arkaynay aamina oo tiri halkan gaariga ninkii wadi jiray heesta aan maanta ka jawaabaynay garmaqaate laakiin marka ay joogtay halkii Soomaaliland in ay halkaasi aad iyo aad ugu hambaliyeen doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacay baarlamaanka iyadoo ku faraxsan sida uu faray qof badan ay Soomaaliland ay doorashooyinkaasi u qabaan qabsay waayahay عبد الله عبدو
ayaana in yar aan kugu darsado 2 minutes waxay tiri markay Somaliland ay joogto waxay tiri Somaliland dimuqraadiyad baa ka jirtay iyo xisbiyo wanaagsan oo dalkani waa dal hore u socday tiri oo dimuqraadiyad ka jirta sababta u jeeday ii sheeg ayaana waayahay kulleyba anigu aragtideeda gaaban haddaan ka bixiyo waxa weeye ninka fanaanka kuusaan sheegay haddaad adigu tahay mu'adin isagu dimuqraadiyadiisii xeerkiisii xuquuqdiisa ilaalsanaya ninka fanaanku intuu xagaa kusoo fadhiista adigoo kuma dhaleecaynayo amba nin maxay ahayd inay macaangaga goomeesayo iyadu waxay iska dooratay maxay ahayd in ay iska raacdo ninka macangagay arkayso oo xoolihiina gacanta ugu haya uguna shubaya ayay iska raacday laakiin haddii ay Somaliland tagto ay sheekooyinka ay ku haysto Somaliland shacabka Somaliland dimuqraadiyad bay u bislaadeen way iska qabanayaan ka wax iska qabtay Djibouti wanaagsan su'aashaasi waxaan siin Cabdalla Cabdo oo isagu nala jooga inuu isagu maxay ahayd inay ka faalloodo maxay ahayd inay sababta keenaysa maxay ahayd in maanta jamhuuriyadda Djibouti hadday tahay fanaaniinta waddanka ku nool ama kuwa dibadda jooga ama hadday tahay siyaasi ama ku doono uu noqday mid maxay ahayd inay tagu Djibouti oo ka qaado waa maxayna Cabdallo oo sida maxay ahayd inay shacabku ay arrimaha caynkaas oo kale nimanka aad qaadatada ama fanaanaan oo ama hooyanka maxay ahayd inay isagu waddanka intuu yimaado xoolo u imanaya been sheegaya kule waddanka waa ka jirta wax fiican baa ka jira wanaag baa ka jira sidee baa markaa loola tacaalaya dadkaas Cabdallo ku soo dhawo adiga fikirkaaga intaanan u gelin heestii ay idinku ballan qaaday aad iyo aad baad u mahadsantahay ayaan le walaalkay waxa weeyaan horta anigu shakhsiyan lama yaabayo Aamina gabadha waa Ismaaciil Cumar Geelle dalka baahi buu baday dalka laakiin baahidii unbay ka raacday oo ma garanaysaa ninka gaariga wadaha loo daayo muxuu wadi aqoontiisu sankiisa kama dheera aqoontiisu nin aqoon le maaha waa nin qabyaalista waa la garanayaa anigu karskaad baan ku dhashay waan garanayaa waa nin qabyaalista oo ciyaar soqolnimo kusoo koray marka waxba kama xishoodo wax kasta uu ku jiraa wax kasta uu galaa marka dadka reer Djibouti taariikh baa loo sameeyaa jirin waxa la doonaa in la amaano taariikh loo sameeyo jirin oo asagoo samaystay laakiin macal asaf waan ku xumahay aad baan uga xumahay ninkaas inuu darajadaas soo gaaray waayo aqoonteeda ma lahayn qabyaalad buu ku yimid oo adeerkii baa qabyaalad ku keenay nin ma garanaysaa meel kala wadi kara maaha ama dowlad kala hogaami kara maaha uma bislaanba dowladnimada sa loo hogaamiyo ma garanayo dastuur iyo sharci ma yaqaano dastuurku wuxuu haystaa warqad meesha iska taaloo la qorqorayo sidoo doona ka yeeli karo yuu haystaa marka gabadha Aamina waxa weeyaan ninku hadduu xitaa gaajoonayo sharaf ba laga raacaa iyo mar haddaad islaan tahay damiirkaaga waxyaalo uu ku diido inuu jiro hadduu damiirkaagu kuu diideen haddana diintu inay kuu diido weeye ma garanaysaa amba aqoontu kuu diido waxa weeyaan dadka reer Djibouti waa dad la dandhaamiyey waa dad mataqaanaa nin masriya bari mataqaanaa dans les années 70 Djibouti imiday facarbeed ku khudbadeynayay dadka inta ugu badan may garaneyn sacabku buu tumaan wuxuu yiri waxba fahmay sacabku ay tumaan waxaan ka hadlay ma garanayaan marka dadka reer Djibouti dad caankaas noqdeen muutoon way iska noqdeen iyagu gaariga ninka wada waliba ku haysayaanba kama baxumaanayaan ku haysayaanba ma ogtahay walaalkood baa gaajoonaya adeerkood baa qalku gaajoonaya diimis bay ka soo kacayaan nolol kuma haystaan xoolihii dadweynuhu qaatay wuxuu yeelay inuu dalka yeesho war dalkan ma lihid war ninkan qaxootibaad ku soo gashay dalkan warqadaha qaxootinimaad ku heshay dadka waxaa laga dhaadhiciyaa reer geela dalka deganaan jira war ma deganaan reer geela meeshan qaxootibaad ku soo gashay warqadaha ku qaadatay cali carab banaa ku siiyey warqadaha markii booliiska lagu qoray inaad basaas noqotid dalkan uma dhalin taariikhduu sheeganaya waa taariikh sax maaha waa been weeyaan halkan afghanistan runa inuu ku dhashay karanseedka inuu dhashay waa been weeye waa neef veeq min karanseed marka muxuu samaystay daahd buu samaystay taariikhdu u dhashay siduu berisday u samaystay sida gaalada annagii dalka ku dhalanay berisday ma samaysano oo waayo diinteeda waa la samaysan karaa laakiin uma baahni inaan samaysto diinta ma garanaysaa diinta islaamka ka aaminsanahay marka waxa weeye walaalkayo Somaliland bay tagtay waxay aragtay inay dadka Somaliland soo jeedaan hadday heesaha qaado madaxa dhulka loo dhigay marka ma oran karto wayna oran karin Somaliland uma heesaha ku haysta Djibouti kuma haysan karto laakiin hagan cawaan dadkeeni waa noqday cawaan baahi baa la baday asagii baa kule war maanta afar qaado jaadan helaya baskan raacaya wuxuu gashanaya garankii RBB-da asagoo aaminsaneyn way afar qaado jaar u qararaya baahi baa la galiyay war baahidani war dhulkan ninka ale xoolaan Ismaaciil Cumar Geelle male
reerkiisu male jubadiisu male ajaanib bay ku yihiin ninka u dhashay dalkan waa inaan ka ceerinaa oon dalkan soo celinaa sharaftuu lahaa oon ummadda u soo celinaa kaa doontiina dooratiin war dalkan xoolaha soo galaya ilaahay baa markhaatiye waa naga wala badan tahay nin kastoo shomeera hore aan u sheegay 50,000 buu bil kasta qaadan karaa ilaa shaqa loo samayn karo waayo xaq buu u leeyahay dalkan xaq buu ku leeyahay dalkuna xaq buu kugu leeyahay adna dalkan xaq baad ku leedahay markay dadku xaq ay xaq u gartaan iyo dulumkan iska kicin karaan ninkan waa dulum ninkan wuxuu doonayaa loo heeso la ammaano waayo eeg ninka ammaanta jecel waa nin aqoon lahayn alla ka cabsi lahayn ilaahay baa la ammaanaa qofkan maxaad ka ammaanaysiin ubadkiini bukaasha ku dilay baasa qasab caana qasab adduunku mid naga xirxiray 180 sabool baa tihiin dowladda eega dowladda lagu sheego dowladda meesha jirta war meesha dowlad ma jirto kadib waa you dowlad ma jirto maxay maamulaan ku kula 5,000 oo shaqaan sameynaya 5,000 aaway yaa la xisaabtamaya way isku ogyihiin reer Jabuuti waxba oranay haddana markaasay cararayaanoo abo noogu noqo mar kale waa lagu aasi saad mar kale u haysada maadalka abeeli waa lagu aasi ilmahaagana saan buu ku noolaan marka cabdalle su'aal baan ku weydiinayaa adoo aad u mahadsan waxaa jirtay aad ma rabo inaan ka hadlo laakiin caawaan ka hadlaya waa sanad guurihii 22-ka inaan ka hadlo ilaahay baa igu qabsanaya inaan ka hadlo weyn dad badan waxaa jira dhalinyaro oo koor ka shaqeeya oo direysita oo guri iska soo duubaya oo aabba waan ku taageersanahay waan ku ogolahay waan kuu footeenana maanta maaha shalay maaha daraad maaha xaqaygii mushaharkaygii noo soo rid dadkaa dulun bay nagu hayaan leh qofkanay u sheegayaan ay u diranayaan dambaalka amba ay ergada u diranayaan amba ay leeyihiin wax noo qabo ma qof damiir la mise waa qof damiir lahayn balishe waxa weeyaan xasanow dadkan depression baa ku dhacday they are depression baa ku dhacda oo ninkan waa cabsina ninkan ay weydiisanayaan waa ninka waxaa u gartay asagaa u gartay asagaa halkaa dhigay asagana saa ogol inay ku socdaan markaas ku leeyahay aabboy warkani aabbo maaha hooyo maaha waa laba masaayib waa masaayib way ku leeyahay aabbayo hooyo war aabbayo hooyo ni maaha waa dalkiina rita war yaa itaalkaagu wuxuu ku siinayn yaaqi kuma helaysid war itaal baad u baahan tahay waa inaad u dagaalantaa waxaa gabanaad heshaa soo dhiraytaa war dalkan aan ku noolnahay gaalada ah war hadduu mishaarkiisa waayo baasalad buu qaataa war halkan dadka si dhayra lagu meeriyo maraykan baasalad buu qaataa ninkii eri madaxa ka saaraa baasalada sharci bay ku kala socdaan waa la kala baqaa adigii ina lagaa baqa ahayd adigii baa baqaya kule aabo hooyo ii soo rid waxa looga maqan war isla yaaba vous avez quel âge mise jiri baa tihiin ninkan dulmaya waad arkaysiin war maalin handaad kacdiina saw kacdiin ninkan oo carari adduunka khatiyaan bay ka jooga adduunku way barteen waxaan doonayaa xasanow intaan taasi waan garanay oo dadkeena reer Jabuuti waan u tagaan psychiatric oo dhakhtar ma taqaanaa psychiatriga ku psychiatrist inay u tagaan psychiatrika maskaxdoodu ma dhanna ma waxaad aragtay dad hooye aboon ku haya oo gaajoonaya oo kale aabo adaa kuu footay waxay gida ii soo rid hadda asaga waxa kugu talagalay kii kugu talagalay baad baraysaa ka waran marka damiirka kaa ku siinaya waxbaa ka siiya dadkan c'est mort vivant waa dad dhintay oo iska socdo way socdaan waxa weey waxa war ubadkaaga asagoo haba noqdee muxuu ugu talagalay ubadkiisa kuwa dhali doona muxuu ugu talagalay ma inaan saa u sadaqaystaan bise xaqooga sharaf inay ku helaan dalkan uu naga badan yahay xasanow juufadan meeshaas ku timiday waa wala ajaanib kaga soo qabo kaafiya soo haysta ka haysta Amerika ka haysta qalka abeed soo tous des étrangers aniga halkayga war ciise wuxuu doonaa sheegto war ciise waa walaalihiin laakiin nima meel buu ku dhashay de maxaa loo diidayaa kuwa ciise ku dhashay Jabuuti dalka inay maamulaan waa kaay xasan adigoo Jabuuti ku dhashay Ethiopia maamul oo meel ka carab laguma ogolo say adigu maxaad u ogoshay de dalka Jabuuti maxaad u ogoshay adigu waa sidla fuliya marka psychiatrist wala baahantiin وأستاذ وقوشاي وحلا قاعد أدعي وحمد تقانيد كوي توبي كي مدبا وحيقان أدو حمد تقانيد كوي صوالة كي مدبا وحيقان أدو حبا قاعد أدعي هذا كعب أبونا corruption كو حكت من إثيوبيا الصومالية جيبوا ذلك corruption ما يقرنين corruption اسمع عمر number 1 نيكا ديدي نيكا دونيا ونيكا جال I don't give a shit corrupt we are very واي عبد الله نونص
walaalkay ayaan le heestii iyo waxaan jecelahay inaan ayaan la siinay عبد العبدو استفي عن بولا هذا شعب جمهورية جيبوتي كان بالبلد جينا وطننا كلا لبعض سنة حسن دالي ما دام فنانين تنصابوني آدي مركز أول شيء سنة إنه أرمها وموتهاي مرورا كشيء إنه وأرمها آدي وفضل وحكم ده قال بقول كنت نجيبوا لي لفريم حاجة هذين ارتداد جيبوتي حتى سنة فنانين هديتها هي حسن روراي هديتها هي توباع هديتها هي آمنة هديتها هي فنانين بدن أومانتا عنكا وبري وصوماليا عنكا إن حلقات يمجرين كويس جرين فنكون جبوت مركو هرو ويالي ومركو تبحق الصومالي لبسو بوري ويبدي نمكا جوفادا سي فنكا يغا بربوري يغا ساو بالبوري كوسي تمانيا وضل كان بالبوري وياي وحا أنك سبتانبا وحكا الماها إنك وحا نزين بلنقاني هس عصب أو كجوابي ساقاريغا نيكي ودي جري هسه وحلي هذا كرم قاطع وهسه قري نندل يرى أوريكا تسيسا خدير اسا انت هسه لبلابن ايالا waxa dhex galo انت هسه لبلابن ابوها كيبا سؤاليا خدير عبد الله دالي ونن ادي وداير جمهورية جيبوتي كل شيء حافظ السيس كل شيء حافظ اللحد كل شيء waxa in badan laga dhaadhiyay Abdul Abdoona waa idin sheegay waxaan laga dhaadhiyay haddaad reer Djibouti hees ma qori kartaan waxaan laga dalbanayaa wadanada jaarka laga dalbanaya haddaad tiin reer Djibouti ma heesi kartaan wadanada jaarka laga dalbanaya ay si fiican u hadal barnaamijka galaysaa الله مغلى يدون كتير. أوكي. ما يجي ما نقول. وكجرتا وحا أيال وحا بربر كيجا تلفون كخدك كجرا خضير عبد الله الدالية خضير عبد الله الدالية كسروا برامج كجيبوتي توس مركو هورس. أدبان ودوهاي وان سلام يا دمانتين سند وعن ونسن بني الله يا دمانتين عبد الله عبدو حسن دالية يا عيال حاج. أدبان سلام. برشة دعونا سنة. برشة دعونا سنة دمان ومدة الصومالية وده أدبان سلام يا سنة برشة وعمان الله دمانتين بقى. وياهي خضير waxaan ku weydiinayaa abwan adigoo raaliya oo kuleyba barnaamijka caawa toos ugu jira oo khadka telefoonka ku jira waxaan ku weydiinayaa anigoo xasan daaliya heesta gaariga ninkii waday haloo daayo heesta ku dhawaaqday gabadh reer Djibouti oo fanaanada ay ugu heestay ma aragtay dawladda ama in Cumar Geele sababtaad uga jawaabtay heestaasi maxaa kugu curiyay sababta waxa igu xuriya xasano hadaan kaaga jawaabo su'aashaada waxa igu xuriyay afayskii Facebook markaan arkay heestii ka badatay waan arkay magarat Facebook ka badatay magarat marka waxaan idhi macaarad iyo maxaafadna in inta tirada kala leeyahay waan ogahay sax oo 20 baa dhageysanaysa amar farax fanaanad qaaliya oo fanaanad reer Djibouti magarat صح إن سيدتك هراي يندوني إن إيونا وحي دونا ينعنورا ما يفهمت حاجة هاي سيدتك هدي بقولكي ربعتهم بأمن فرح دقيقين هاي مركز سيدتك رير جيبوتي هاي جرو لكوتري بختي أو حلالها أفرع شاك أكاد دقيقين على قلبك أكو قبول جستان بنصني هاي marka heesta marka aad samaysay sababtaad u raacday ee kugu dhalisay ma waxay ahayd ummadda reer Djibouti dhibaatada ku jirta inaad uga jawaabtid heesta jawaabteeda aad ka bixisid masaasay kula ekeen ayaan baa soo dhacday oo waan hayay in dhowr cishaba 2-3 cisho hore waan hayay laakiin wax ii heesta sax yan way oo fanaaniinta Djibouti ma ba heesi karaan bastante hay waa heeso gabadhii geey weyn noqonaysa ma garad hay heeso gabadhii geey hay ma fahant sax laakiin de Yurubna waa gabadh baan helay ma sha Allah gabadhii baan de ii heesayso qabato iso dub hay laakiin de maanta waxaan rabaa inay gurigii qasrigii maaragtay
waddanka looga maamuli jiray ama looga talinayay amba looga talinayay looga arrin xumeynayay ha inay gaadho guri baas baa la yidhahdaa ka inay gaadho caaw dhegeysto wuu dhegeysanayaaye marka adiga maxaad odhanaysaa bulshadaada adigoo abwaan reer Jabuuti oo aad u da'yar oo laakiinse abwaan qarsoona maxaad odhanaysaa bulshadaada reer Jabuuti iyo inta ku daawanaysa iyo inta ku dhegeysan doontaba maxaad hambaal u diraysaa haddaan anigu wax yar aan ku odhan lahaa Jabuuti markaan joogay hadda xabadii aan iska yar tuurtuuranay laakiin inaan ku dhex milmo sida fanaaniinta qaar waan diiday oo waan iska aamusay ma garat maadaama shaqaynayn waan kiray inaan maaragtay fanaaniinta ku dhex milmo oon dhinacam waxay cunayaan ba la cuno sax laakiin markaan arkay nimankii iga horreeyey allah naxariistay intii badan way dhimatay inta ka nool qarshiil oo aqal sarir cabdiir dul fadhiya markaan arkay de adiga hadba laguma jiidaan marka aamus ma dadkii kaga soo baxay imikana khadiir waxaan ku weydiinayaa neefta iga soo baxaysa hadda waa dhageysan baa la radio maya caawa kaa faa'iidaysano haddaan nahay bahda Jabuuti Toos TV ma fahamtay fanaaniinta amba maaragtay curiyaasha abwaanada Jabuuti dadkaad ugu jeclayd kumay hayeen fanaaniintii hore ma mise kuwii dhexe kuwii dhexe iyo kuwii dambe ma kuwii hore mid aan gebi waan wada jeclaa gebi fanaaniin taflahayaanoo reer Jabuutiya ma garatay oo dalka dhexdiisa ka hadli jiro wixii jiray wixii soo socday wixii imika way jiraan ka hadli jiray ma jiraan fanaaniinta hadda imika ay haystaan waxa uu haysaanu dawlad bas wax kale waa la waayay laano fanaaniinta in lagu dheeraado xasanow ma jecli fanaaniintii dambaa noqotay sidatan fanaaniintu inay cumar iyo boonaane iyo meel in laga arko daawanaya TV uu daawanaya heblaayo ma joogto leeyahay xaafad buu meesha waa xaafad guri buu ka dhigtay meesha waa gurigiisii qofka hadduu imika madaxdu ay meel tagaan hadduu arki waayo wasiirku iman waayo meesha ka hadlayo ninkaa wuxuu leeyahay maanta meesha maanigu diiday islaamku diiday uu leeyahay wuxuu iman waayo fanaankuna waa sida iyadoo jeclayn dhinaca duri la oo maanta xanuunsan bay tagaysaa la bisanaysaa waxa laga arko heesta ay tuma odayga kulli uu daawanay kulli saawi fanaaniinta ku dheeraanina iyo way cadilayihiin waaye khadiir fanaankaaga haddaad la rabin kulleyba anna lama rabo inaad turxaan iyo inaad hadal aan xun niraano ma fahamtid maxaad ku dhiirigelinaysaa fanaanka Jabuuti iyo abwaanka haddaan wax ku dhiirigelin lahaa ma hadday dibadda imaadiin waan ku dhiirin lahaa iyagoo gudaha joogaan kuri iyagoo gudaha jooga dee iyadoo gudaha jooga dadkiina dhinac ka raacan leh dadkiina cakiran ninkaa la xidhee maaragtay dalka wax u bartay gabood ku jiree 10 sano la xukumay waa 10 sano xasanow 10 sano ninkaa meesha gabood la geliyay reer Jabuuti waa 4 cisho shaqadoodu 4 cisho bay dibadda soo baxayaan ninkaa soo daayay 10 sano la xidhay 10 sano horta muu joogaya taw ma gurigiisiiba meesha socdaal buu ku ahaa dahay 10 sano soo xirxinayro wadanka ku dhashay oo baaragtay muxuu ahaa dhaqaalihii wadanka wax ku soo bartay sidoo aqligiisu soo noqday inaad 10 sano xidho madaxweynaha Jabuuti khadiiro madaxweynaha Jabuuti madaxweyne dalka iyo dadka kaba naxaya مسوى مدحوينك شقيسنا يا دلك جيبوتي أو دقالك أو رسنا يا خضيرة هذا كوسو تبي أدوغ أبوانا حسنا ودلك وحو بربر مكوش يا دلك وحو بربر مدحوين الرير جيبوتية يو دلك وباهين ياهي أما معارف النقض أما محافظة النقض أنا فكرة دان كمان لها أوبينيون غي صح أوبينيون غي وحو ياهي أما النقض حسبي أما واحد دونتين نقضة نكا عدسو الديني
وأنا غير جيبوتي هالنقطة أم على سبيح قدرش أم بجيبوتي ولي بسيب جيبوتي قدرش نكابا ذلك هرو مرني أو ذلك كان حيا لهم أدبر ما ستة خضير عبد الله الدالي أبوان وخضير وحد سينا يا أيالا سينا أيالا كسعة خضير وأقول عيال فكرة أدبر خضير أو حقول هذا أيالا ما يا عيال كنا هناك خضير عبد الله الدالي أدي أدبر أمها تنتهي إذا أبو فرم ألو وكم قليا ما يمغشى خضير عيال ها ما يمغشى وكم قليا خضير وكم قليا هاي وسؤال بيدي هيا ويدينا يا مريستي هذا كان أدوه أدعرسي عيال ما مقليا وعن ويسينا شعب سؤال هذا خدير مدري خدير باقوري أبوان كي نقلي أك ودا ديار جيبوتي حافظ السيس ولا شيء وحنا وهس سيسا قبل جيبوتيا مجيء وكجاب سنينا هسا سي وحيد لنا كرة عشتا خدير هستي مسيدي دقيسيا خديرنا وحلنا هاي إلهي أكاد الزائد يو هاي ما تقول ما مقلع مساعدو ما مقلع ما هو مقلع ما تقول مقلع أنا وأقولي خلاص هذا ما سيدا هست خلاص الدون كهن لو ذا وياي وعتبتان بواحد laysku gacansayda hadday tala guracanto igu dido xaaja garan waydo oo labada geesood murtida laysku gacansaydo karmaqaate abaar gudinayay talahu gaysteene isaga kilkilo dhibkii sii ku haadinaya godobtiyo colaadaha ninka galaya loo dayni karmaqaate abaar gudinayay talahu gaysteene isaga kilkilo dhibkii sii ku haadinaya godobtiyo colaadaha ninka galaya loo dayni ummadeena ninka kala gureegabayaan loo daynin hilbahooda ninka gadi jireegabayaan loo daynin umaysiga ninka nagu haye gabayaan loo daynin ummadeena ninka kala gureegabayaan loo daynin hilbahooda ninka gadi jireegabayaan loo daynin umaysiga ninka nagu haye gabayaan loo daynin kaajada ninka nagu dileen weliga simbeeri hooyada ninka garifaye gabayaan loo daynin kaajada ninka nagu dileen weliga simbeerin hooyada ninka garifaye gabayaan loo daynin gacalkan
iswada gowracays ku garaabaynin geerida ragga doorbide kumuxuu wada leefay yay galbane ninka kala gure gabayaan loo daynin gacalkan iswada gowracays ku garaabaynin geerida ragga doorbide kumuxuu wada leefay yay galbane ninka kala gure gabayaan loo daynin gayigeenu waagu dageen gooni isku taagnay gogasha wada fiidsaneen garab iswada siinay dhurwaagii gawsa xasuulistee boqnaha wada gooyay shawaynta ninka geeri baday sow la garan maayo shacabka inuu gabi ka lulay sow la garan maayo gayigeena waagu dageen gooni isku taagnay gogasha wada fiidsaneen garab iswada siinay dhurwaagii gawsa xasuulistee boqnaha wada gooyay shawaynta ninka geeri baday sow la garan maayo shacabka inuu gabi ka lulay sow la garan maayo marka gabi indheer garatadii jeel laysugu geeyay guri walba geesiyo gobana laga dooxay xalaqii gashiga daaqaye gocandhadii keenay dadkiisii kala gaasire gacal isweydaartay gayiga xoolaaduu ku furay sow la garan maayo inuu gablanka dhigay gaaridiisow la garan maayo inuu gablanka dhigay gaaridiisow la garan maayo marka gabi indheer garatadii jeel laysugu geeyay guri walba geesiyo gobana laga dooxay xalaqii gashiga daaqaye gocandhadii keenay dadkiisii kala gaasire gacal isweydaartay gayiga xoolaaduu ku furay sow la garan maayo inuu gablanka dhigay gaaridiisow 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 la garan maayo يا سلام يا سلام عنوان المية حسن داليو إن شاء الله بل أديك أيام كودينيا إن شاء الله هذه أدمان قيروضي كلمة لها يو هذا الله دا وأبوان استعمالي إنه موقتها إنك جاجن نقول ليه ولي قسن بيرين هو يدا قريفي يا لو دين بوري هذا نوع يري هاكي قم عولا في inay galban bahashu inay naga cararin in loo deyn waayo adaa ku soo dhaweynaya ninka hooyada gablanka ka dhigay waxa laga dhigay waxa laga dhigay gobonimadii gablan baa laga dhigayo wadiga arkaya gablan ayaa colaada nagu guud furay ayuu yiri ninka colaada nagu guud furay ninka maxaa ahaydina ummadda gabi ka laalaaj إنا لله وإنا إليه راجعون بكاسي هسه تجيب عندي كو علم دونا وهس waxa ku weydiisan ayaan la Ismaaciil farsamayaqaanka sawirada iyo codadka sutubne heestaas uu fadhiya oo ku daawanaya ugu celiya bis baan ku leeyahay happy new year heesta ku celiya very emotional
laysku gacansayro hadday tala ku racanto igu dido xaaja garan waydo oo labada geesood murtida laysku gacansayro karmaqaate abaar gudinayay tala u gaysteene isaga kilkilo dhibkii sii ku haadinaya godobtiyo colaadaha ninka galaya loo dayni karmaqaate abaar gudinayay tala u gaysteene isaga kilkilo dhibkii sii ku haadinaya godobtiyo colaadaha ninka galaya loo dayni ummadeena ninka kala gureegabaya loo daynin hilbahooda ninka gadi jire gabaya loo daynin umaysiga ninka nagu haye gabaya loo dayni ummadeena ninka kala gureegabaya loo daynin hilbahooda ninka gadi jire gabaya loo daynin umaysiga ninka nagu haye gabaya loo daynin kaajada ninka nagu dile weliga simbeeri hooyada ninka garifaye gabaya loo daynin kaajada ninka nagu dile weliga simbeerin hooyada ninka garifaye gabaya loo daynin iswada gowrace isku garaabaynin geerida ragga doorbide kumuxuu wada leefay yay galbane ninka kala gure gabaya loo daynin gacalkan iswada gowrace isku garaabaynin geerida ragga doorbide kumuxuu wada leefay yay galbane ninka kala gure gabaya loo daynin gayigeenu waagu degeen gooni isku taagnay engogasha wada fiidsaneen garab iswada siinay dhurwaagii gawsaxa soolistee boqnaha wada gooyay shawaynta ninka geeri baday sow la garan maayo shacabka inuu gabi ka lulay sow la garan maayo gayigeena waagu degeen gooni isku taagnay engogasha wada fiidsaneen garab iswada siinay dhurwaagii gawsaxa soolistee boqnaha wada gooyay shawaynta ninka geeri baday sow la garan maayo shacabka inuu gabi ka lulay sow la garan maayo marka gabi indheer garatadii jeel laysugu geeyay ee guri walba geesiyo gobana laga dooxay xalaqii gashiga daaqaye gocandhadii keenay ee dadkiisii kala gaasire gacal isweydaartay gayiga xoolaaduu ku furay sow la garan maayo inuu gablanka dhigay gaaridiisow la garan maayo inuu gablanka dhigay gaaridiisow la garan maayo marka gabi indheer garatadii jeel laysugu geeyay ee guri walba geesiyo
قبنا لغدوحي حلقي قشيقة داقاي قعانت ذي كاني dadkiisii kala gaasiray gacalis weydaartay kayiga xoolaadu ku furay sow la garan maayo inuu gablanka dhigay gaaridiisow 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 la garan maayo اسماعيل يا سلام هذا كل بيا هستا يو خدير عبد الله عبدو وكنت بنيا عبد الله وكنت بنيا سؤال يا هستا بل مرها يو ابوك السميي يو durwaagi gowsaxa soo listee boqna hawada gooyay shawaynta ninka geeri baday sow la garan maayo shacabka inuu gabi ka lulay sow la garan maayo marka gabi indheer garatadii jeel laysugu geeyay ee guri walba geesiyo gobana laga dooxay xalaqii gashiga daaqaye gocantadii keenay ee dadkiisii kala gaasiray gacalis weydaartay kayiga xoolaadu ku furay sow la garan maayo inuu gablanka dhigay gaaridiisow la garan maayo inuu gablanka dhigay gaaridiisow la garan maayo marka gabi indheer garatadii jeel laysugu geeyay ee guri walba geesiyo gobana laga dooxay xalaqii gashiga daaqaye gocantadii keenay ee dadkiisii kala gaasiray gacalis weydaartay kayiga xoolaadu ku furay sow la garan maayo inuu gablanka dhigay gaaridiisow 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 la garan maayo اسماعيل يا سلام هذا كل بيا هستا يو خدير عبد الله عبدو وكنت بنيا عبد الله وكنت بنيا سؤال يا هستا بل مرها يو ابوك السميي يو